gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mid ah ururada iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo hay'adaha laamaha dawladda ee uu ka shaqeeyay magaalada Berbera kulankan oo ku saabsanaa sidii la isugu xidhi lahaa hay'adaha iyo ururada madaxa bannaan iyo gobolka iyo sidoo kale hay'adaha laamaha dawladdu ay wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saaxil waxaana halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidoo wasaaradda qorsheynta ee gobolka Saaxil oo ka warramay kulankan iyo ujeedada ay saaka isugu yeedheen mas'uuliyiinta kala duwan ee ka socda ururada iyo hay'adaha madaxa bannaan sidoo wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdullaahi Ismaaciil Yaasiin ayaa halkaasi gudoomiyaha ka hor ka warramay kulankan iyo ujeedadiisa ujeedada ugu weyn ee isugu nimi maanta kulankeena waxa weeyaan sida ajandaha ay ku haysaan laba qodob baa ugu muhiimsan saddex qodob marka hore inaynu isbarano oo gudoomiyaha cusub iyo hay'adaha gobolka shaqeeya inaynu isbarano qodobka labaad inaynu maanta ka wada hadalno sidii kulan ka ballaaran kan aynu fadhino oo 23ka bisha June aynu qaban doono sidaynu u qaban lahayn kulanka gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa uga mahadnaqay dadkaasi oo ka qayb qaadanaya kulankaasi iyo sida ay u soo ajiibeen waxaana hadaladiisa ka mid ahaa fadhi wanaagsan soo dhawaada كل وقت إنه يريحي وحنسجعلها هو يسبرندونا إن شاء الله تعالى وأنا سود وين إياه شركة يدين سعون تري لو بلود كا يمكن لقد واجس ده بلود لقد يقولون تي واسع وقروح بدن وين صدق بلود أفرس الدحال دولة قيمية وكفلنت حي وهو قبل هاي اللي وكل بقته وهي شقاء هاي اللي جبقته waxaana la sheegay in kulankaasi kadib markii uu soo gabagabay la saqaatay qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen in shir ballaaran la isugu iman doono 23ka bisha halkaasina laga hadli doono waxyaabaha uu qabsoomay hay'ad kasta oo iyadu ka tirsan hay'adaha laamaha dawladda iyo kuwa madaxa bannaan iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee ay ka shaqeeyaan geesta kalena bulshooyinka ku dhaqan magaalada Berbera oo aanu saaka mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen habkii yahanaankii ay golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo dhameeyeen isla markaana ay u dhexdhexaadiyeen xisbiga kulmiye waxaana dadweynahaasi oo aanu kula kulanay goobo kala duwan oo kamid ah magaalada Berbera hadaladoodii kamid ahaa horta waxa weeyaan si wanaagsan bay golaha guurtida u dhameysay waxa weeyaan marka deewaan anagu waan soo dhaweynaa nahay dhalinyarada gobolka Saaxil khilaafka garanaysaa sida wanaagsan loo dhameeyay waxa weeyaan waan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan u aragnay go'aanka maxayday golaha guurtigu gaaray iyo maxayday baarlamaanku inuu go'aan aslaaxan yahay dalka kuwaas saasaan ku taageersanay insha Allah billahi kariim horta soo dhaweynaa go'aanka ay gaareen golaha guurtida ku xaliyeen khilaafka xisbiga kulmiye haddana laakiin maadaama labada dhinacba ku qanceen waa soo dhaweynaa wixii dalkan iyo dadkan bal badbaadinayo assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan soo dhaweynayaa horta go'aanka golaha guurtiga gaaray laba xisbiga xaafidka xisbiga kulmiye ay ku dhexdhexaadiyeen haddana waan aad baan soo dhaweynayaa golaha guurtiga waxaan looga baahnaa inay waxa dadka waliba ka soo qabtaan inay ka sii badiyaan